Taliska booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen Hibo Maxamed Xasan oo dhawaan laga waayay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Hibo ayaa taliska booliisku waxa ay ka qabteen bar control iyagoo xilligaasi baaritaan guud ay sameynayeen. Taliskana ay soo gaartay in Hibo Maxamed Xasan la la'yahay jaani cirib halka ay dhigtay. Taliyaha saldhigga degmada Guraceel Dhamma Cismaan Cali Hudey oo warbaahinta kula hadlay saldhigga degmada Guraceel ayaa waxa uu ka warbixiyay baaritaanadii ay sameeyeen taliska booliiska degmada Guraceel waxyaabaha ka soo baxay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. Ayaan saakay 5 saac iyo 40 ayaan gacanta ku soo dhignay. Markii aan gacanta ku dhignay baaritaan badan kadib waxaan ku guuleysanay Hibo in aan baaritaankii ay noogu cadeyso in cid soo afduubtay aysan jirinin oo ay xamar iyadoo xor ah ay ka soo tagtay soona aatay Guraceel oo ay taga yihiin dad familkeeda ah. Hibo waxay gaariga ka soo raacday magaalada Muqdisho iskooyska Baar Ubax. Caamir Cismaan Macallin waaye Caamir Cismaan Macallin marka lacag $50 ay bixiday halkaas ay gaariga ka soo raacday sidaas ayay ku timid degmada Guraceel. Baaritaankiina waxay noogu cadeysay inaysan jirinin bataatanba in cid soo afduubtay oo afduub ku soo wadatay inaysan jirinin cid afduubtay iyadoo xor ahayd xakana ay family uga soo tagtay xoogaa barbalam jira halkaana ay maaragtay family u soo aaday iyo barasho intaas ay noo cadeyday. waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhamaan ahaladoodii ahalkii ay maaragtay ka soo jeetay iyo waalidkiiba inaan u cadeyno in gabadheena nabad qabto sidaasna ay ku timid ayaan rabnaa inaan u cadeyno. waxaan rabaa halkaas inaan ku soo kaabiyo waxba inaan ku sii dheeraado ma rabo. Hibo Maxamed Xasan oo ah gabadha la weysanaa ayaa la hadashay warbaahinta waxayna sheegtay in wax afduub ah ama dhibaato aan loo geysan si cadna ay uga soo baxday magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud halkaasi oo ay sheegtay inay ku sugan yihiin qaar ka mid ah waalidiinteeda. waa soo baxay marka soo baxay gaariga soo raacay istareeto Guraceel ay imaado ani hooyadeen weligeed xiriir dagaalna ma dhex marin waa dhaamo way dhacday isdirteeda saa Guraceel u arkaaro Guraceelna waa imaado. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cabdishakuur Indhaceel oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in degmada Guraceel ay hooy iyo gabaad midna u ahayn in dad baxsad ah ay soo gaaraan. degmada Guraceel maamulka degmada Guraceel iyo saraakiisha amniga iyo ciidankuba waxay ku mashquulsanayeen sidii mataqaanaa in amniga loo xaqiijin lahay isla markaana muwaadin kasta oo Soomaaliyeed xorriyad ugu mar lahay degmada Guraceel iyo mataqaanaa laamigaasi bulshada ay ku safarto. degmada Guraceel waxaan leenahay way bad qabtaa way wanaagsan tahay amni ahaan waa la isku halay karaa. dadka baraha bulshada ku qoraya Guraceel baa gabar loo afduubtay waxaan xaqiijinaynaa Guraceelna gabar loo afduuban loona afduuba karin loona afduuba doonin hadda kadib inta ciidamada booliiska degmada Guraceel iyo ciidamada nabad sugidda iyo maamulka degmadu ay nool yihiin isla markaana ay ka shaqeynayaan sugidda amniga. waa mahadsantihiin. Taliska booliiska iyo taliyaha nabad sugidda degmada Guraceel oo iskaashanaya ayaa baaritaan qoto dheer ay sameeyeen waxa ay gacanta ku soo dhigeen Hibo Maxamed Xasan oo si dhow Maaleysi ah uga soo baxday qoyskeeda maantana lagu qabtay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Bashiir Cabdi Xiirey warbaahinta qaranka Guraceel.